marka laga yimaado muuqaalkan baraha bulshada qabsaday oo gabadha Soomaalida ah ayaa u baahan sharaxaad dheeri ah. Maxaan ka naqaanaa jalaatolaha caanka ah ee Jiljin oo ah ninka ay maanta hadal hayntiisu baraha bulshada Soomaalida ku faafay. Qof kasta oo leh gabar ay wadaagaan dhaliyada walaalnimo ama sheegta jinsiyadda Soomaaliga ayaa ka xumaaday muuqaalkan. Aan kula wadaago xogo badan oo ka hadlaya ninkan reer Turki. Ka hor faalaynta muuqaalka daawada isku day inaad muuqaalka like gareyso si uu gaaro saaxiibadeena, sidoo kalena page-ka follow gareyso. Maxaan ka naqaanaa jalaatolahan caanka ee Jiljin oo ah ninka maanta hadal hayntiisu baraha bulshada Soomaalidu aad ugu faafay. Jiljin waa 40 jir ka soo jeeda bariga Turkiga, magaciisa rasmiga waa Mahmad. Waa heesaa dheelyahan iyo ganacsade. Wuxuu xarun lagu iibiyo jalaatada ku leeyahay magaalada dalxiiska caanka ku ah ee Antalya. Dalxiisayaasha ayaa aad uga hela inay ka iibsadaan, sidoo kalena daawadaan qofka ciyaarkiisa. Jiljin ayaa caan ku ah heestiisa Kalbizin oo ka dhigan waxa tahay qalbigayga, taas oo la mid ah inay ku ciyaaraan qof walba oo ka iibsada jalaatada. Sida ay hore u tabisay warbaahinta Turkiga, wuxuu toddobaad walba xaruntan ka sameeyaa lacag ka badan $100,000. barihiisa bulshada waxaa ku xiran malaayiin dad oo kala jooga dunida. Wuxuu ku wargeliyaa qof walba oo doorta inuu ku ciyaaro heestiisa inuu ku baahinayo barihiisa bulshada. Xaruntiisa waxaa booqda dadka caanka ah oo ciyaaryahanada, aktarada iyo fanaaniinta ay ka mid yihiin. Ma jirto wax u gaar ah gabdhaha Soomaalida. Qof walba oo halkan raba inuu ka iibsado jalaata ayaa ciyaara. Waa haddii qofku uu raali ka yahay, isagana ma jiro qof uu ku qasbi karo si uu u ciyaaro oo markaasna u soo dhigo bartiisa oo caanka ku yahay Jiljin ee baraha bulshada. Marka laga hadlayo sharafta haweenka Soomaaliyeed, ma ahan maanta oo kale muuqaalka inay ka xumaadaan, laakiin waa inay u midoobaan sidii gabdhaha Soomaaliyeed ee aaladda TikTok ku waashay sidii loo qaba lahay. Haween badan oo inta badan ka falceliyay iyo rag fara badan oo wariyaala arrintan ayaa u baahan in dagaal xoog lagu qaado dhalinyarada joogta aaladda TikTok si markaasi gabdhaha Soomaaliyeed ay u noqdaan astaan qaran oo dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo kale hooyooyinka iyo aabooyinka intaba u ah astaan ay ilaashadaan. daawada haddii aad ku cusub tahay muuqaalka, waxaan kaa codsanaynaa inaad noo like gareyso meel kasta oo dunida ka joogto.